بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال أرين دوين أو فضيحة أيا صوب حضي وكوادن جوركا صادق جون يسيد أكله هيبة إسماعيل شيخ عبد الرحمن بشير أو كمدا علماء مت كمدا علماء صوماليات كود وجوا وين أيا كهالي جوركا هيبة إسماعيل أو هري وقبي وزير دور حلال أكله جدسن كساقبتي جمهورية جيبوتي ووزير جامع علمي عكية iyadoo guurka gabadhaas iyo wiilkaas uu yahay waxba kama jiraan maadaama si xoog ah looga furay jaamac cilmi cukiye sheekha ayaa ka hadli doona daawadayaal balse inta aynu faahfaahinta aynu u guda galin ka qayb qaado caawinta dhibanahan markii ay qaleen waxay yiraahdeen waxaan ugu tagnay meeshii caloosha xidmaha waxa ugu tagnay burooyin caloosha kala xiray ee qabsin ma ahayn waa la qalay waa u sidaas u jeedaan baa loo qalay halkaan waa u jeedaan oo saxarada halkaan laga shubayaa markii waxa weeye la qalay ka bacdi oo isbitaalka uu jiifay ilaa 10 bari oo kharash fara badan ku socday oo dhacaan laga qaaday dhaqaatiirtii waxay yiraahdeen ninkan wuxuu u baahan yahay isbitaal dibadda ah oo Hindiya ah anaguna waxa kama qaban karno Soomaaliya waxa loogama qaban karo adigu hadda muddo bil iyo 6 bari abu maraya wali lagu maceelina waxa la yiri 40 bari markuu gaara halkaan la xiriinaya baa la tolaya haddana qalin lagu sameeynaya lacag ilaa 3,000 ku baxday naw tabar ma aan haydeen baan ku soo qaadnay haddana waxa la yiri wuxuu u baahan yahay lacag 20,000 ugu yaraan baa Hindiya lagu tagi karaa waxaan u sheegaynaa marka dadka ku shuqul samafalka fadlan haddii aad rabtid inaad ka qayb qaadato caawinta kala xiriir lambarka shaashada ku qornaa sidoo kale wixii aad awood ugu dir waa tahay daawadayaal sheekh cabdiraxmaan sheekh bashiir oo ah caalim weyn oo Soomaaliyeed isla markaana dadka Soomaaliyeed aad u garan og yihiin kana soo jeeda dalka Djibouti ayaa waxa uu bixiyay waraysi la yaab leh isla markaana hadal hayn badan dhaliyay waraysigaas ayaa waxa uu kaga hadlay bixinta Saadiq John ee la siiyay siinta Saadiq John ee la siiyay gabadha uu dhalay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ee haybado Ismaaciil Cumar taas oo shaki weyn geliyay gabadha waxa uu sheegay in ninkii qabay oo horay dhowr xilal u soo kala qabtay oo wasiir ah uga soo qabtay jamhuuriyadda Djibouti jaamac cilmi cukiye haatan xitaa baasaboorkii laga qaatay oo Djibouti inuu meel uga baxo la diiday in gabadha si xoog ah looga furay diinteena islaamku waxay ka qabto in gabar la qabay oo nin qabay in si xoog ah looga furo iyo in uu guurkan Saadiq John iyo haybado uu ansax noqonayo in kale sheekha ayaa markaasi waraysi uu ku bixiyay arinta iyada ee ku sheegay daawadayaal waxaana sheegay in iyadoo qori lagu hayo oo taliska sirdoonka iyo sidoo kale ciidamada Djibouti loo adeegsaday in gabadha xoog inuu ku furo isagoo jecel lagu khasbay oo isagoo dhahay waliba waan jecelahay arintaas oo noqonaysa arin waxba kama jiraan waxa kale oo arimahan qayb ka ah masaalixa gooni ah sida ka ganacsiga qaadka ama jaadka markaasi Kenya haatan ay madaxweyne Xasan iyo Ismaaciil Cumar Geele iyo kuwada jiraan Saadiq John qayb ka yahay iyo sidoo kale barnaamijyo kale oo ku aadan ridista madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sheekha ayaana ka hadlaya daawadayaal waxaanu ka leeyahay sidan wasiirka dhalinyaradu ahaa tacliintu noqday kadib wuxuu noqday wasiirka xawri caafimaadka wuxuuna ahaa wasiir loo yaqaan Superman wasiirka wasiirada ayuu jaamac iyo maaragtay haybado furitaankoodu sharci ma ahayn waxa ajalad baa dadka la dhageysiyay inuu jaamac waxa naag la sameeyay barnaamij qaldan islaamka dhexdiisa iyo dhaqanka Soomaaliga iyo dhaqanka reer Djibouti barnaamijkii marka la fidiyay dadkii way rumaysteen bar indhaha loo geeyay waxa gabadha fur afka ka dhawaan furay xur wajacala gabadha fur iyaduna xataa waqti wajacashay waxa la sheegay meena qaadan marka maxaa lagu simaxnaado الطلاق المكره طلاق القفك لو خصبه كان فريتان كاسي اصل waxa weeye gabadhu ma banaanay ba mise wali banaanay maaha sharcan wa in la hubo oo la balaadiyo ya jaamac saddex uu soo maray wasiirka dhalinyaradu ahaa tacliintu noqday kadib wuxuu noqday wasiirka xawri caafimaadka wuxuuna ahaa wasiir loo yaqaan Superman wasiirka wasiirada ayuu ahaa way xasab alayna ma jaamac way marka jaamac
gabadha uu guursaday si sharci uu guursaday laakiin si sharci loo mafulin jaamac iyo maaragtay haybado furitaankoodu sharci ma ahayn waxa ajalad baa dadka la dhageysiyay inuu jaamac waxa naag la sameeyay barnaamij qaldan islaamka dhexdiisa iyo dhaqanka Soomaaliga iyo dhaqanka reer Djibouti barnaamijkii marka la fidiyay dadkii way rumaysteen barnaamijkii markay rumaysteen ninkii waxa lagu yiri gabadha fur uu diiday habeenba madaxweynuhu yaadhay wuxuu soo qaado faylal siyaasadda caawan ka wada hadlaynaya ninkii faylal buu qaaday wuxuu tagay guriga madaxtooyada waxaa loo yeedhay ninkii askarta xukumayay waxaa loo yeedhay ninkii mukhaabaraadka xukumayay xasan dhacdo waxaa loo yeedhay qaadi meesha fadhiyahay madaxweynihii baa la soo fadhiistay waxaa lagu yiri gabadha fur kadibna waxaa la sara qaaday meel ba inta la furay bay xaasigii islaantii iyo gabadhii wada ka soo galeen indhaha loo geeyay waxa gabadha fur afka ka dhawaan furay wuxuu wajacay gabadha fur iyaduna xataa waqti way jeceshahay waxa la sheegay meelo qaadan marka maxaa lagu simaxdo الطلاق المكره طلاق القفك لو قصبه فريتانك لو قصبه علمadu waxay dhahan furitaanka qasabka muu dhacaa xanaafta ay bas mid xanaafay uu dhacaa afar saddex jumhuur waxay dhahan ma dhaco واقع ما dhici karay laana waa furitaan oo qof rabitaankiisa ku jira labadii qof rabitaanku ma jirin marka furitaankaasi asalku waxa weeye gabadhu ma banaanay ba mise wali banaanay maaha sharcan waa in la hubo oo la balaariyo arintaasi ka yimid marka Sadiq John gabadhu naga soo doonay hadda reer Djibouti tahay gabadha soo doontay ma hubisay oo su'aal in madax banaantay sharci baa jira dhaqan baa jira diin baa jira waxa jira waxaan taariikh baa jirta gabadhu ma taasoo mid kood weeyaan mid labaad waxa weeye maanta gabadha waxa soo doonay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu ka soo doonay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland weydiistay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland wuxuu yiri hadaan anigu ahay madaxweyne meeyo hadaan anigu ahay reerka gabadha anoo ku hadlaya magaca aabaheed adeeradeed iyo walaalaheed gabadhii waxaan leenahay helaha guulkan wuxuu san ku hayaa jaadka ka hadlay qaadki sharikad weyn baa la sameeyay oo qaadka Kenya ka shaqeysa sharikadaasi waxa kamid ah dadka sahla John baa kamid ah gabadhan uu John guursaday waxa loo dhiibay sharikada bixisa dadku marka ay shaqada hawlgab noqdaan lacagtooda ayaa maamula gabadhan marka waxa guurku waa guur manfaci ah ma siyaasi sadku macnayaan guurku waa guur dhaqaale aqalka madaxweynaha waa meel lagu sameeyo dhaqaale wayaan ninka dhaqaale sa loo sameeyo yaqaan way soo jiitaan way heshiyaan dad baa yiri madaxweyne waxa guriga looga dhisay Djibouti Sadiq John ma gabadhan waxay leeyihiin afarta oo madaxweynuhu dhalay iyo laba guri oo kale ayaa ka dhisan guriga madaxweynaha ee gaarka hortiisa ka dhisan oo la xiray guriga weyn baa la soo degay oo laga saaray jaamac wasiirka hore laga saaray marka Sadiq waxa weeyaan waxa kale oo ina ku darnaa Sadiq waxa magacaabay madaxweynihii hore Farmaajo wuxuu magacaabay inuu cilaaqaadka askariga ee booliska Djibouti iyo Soomaaliya ka shaqeeyo Sadiq markaa wuxuu samaystay oo ka wareegay booliska wuxuu xiriir la yeeshay ilaalada madaxtooyada Jamhuuriga markaa Sadiq wuxuu noqday nin Djibouti ay tajniidisay ay shaqeysay oo Soomaaliya ka shaqeynay wadakii furfuray dawladii Farmaajo arrin kale oo muhiim ah maalintii ugu dambeysay qodobada markuu wuxuu noqday wuxuu yiri madaxweyne Xasanow waxaad riday buur weyn buuro waa weyn baad naga dumisay Ismaaciil baa yiri buurta ugu koobaad dubi waa Farmaajo waxa lagu dubiyana waa John daawadayaal dhowrka arrin oo isbarkan ayaa markaasi gabadhaas iyo wiilka la isku siiyay sidaad oo aragtaan dhanka hoose fikirkiina nagula wadaaga runtii waa arrin ama kaag iyo la yaab leh gabadhan la bixiyayna wax badan ayaa guurkeeda ka soo noqon doona